bulsho xukuumaddii ay dooratay doondoonaysa oo ay isla yihiin. Waxaynu odhan karnaa waa lama arag iyo yaab. Waxaynu odhan karnaa waa bulsho iyo xukuumaddii ay doorteen oo ku jira kaafiya kala dheeri. Waa hooyooyin u baahan waxqabad horumar iyo isbeddel, balse taasi beddelkeeda xukuumaddii ay ka sugayeen waxqabadkaasi una doorteen ay u soo dirtay tiim wixii laga sugayay waxaan ahayn sida xanuunka HIV/AIDSku badanka wuxuu si weyn ugu dhacaa uguna faafaa waddamada ay ka socoto bakhlada tumashada iyo sidoo kale faakahaysigu, isla markaasina aan laga haysanin diinta islaamka, balse dad haysta diinta suuban ee islaamka weliba ku nool deegaanno ka baxsan magaalooyinka waaweyn ee Somaliland. Maxay soo kordhinaysaa wacyigelinta loogu tegay? Dhinaca kale, wacyigelintan ballaaran ee bulshadii indhaha ku haysay xukuumaddii ay doorteen tiim ka socda deegaanadani ku tageen waxa kaga mudnaa deegaanada xadka ay Somaliland wadaagaan ee Itoobiya, gaar ahaanna sida deegaanka Wajaale iyo magaalooyinka waaweyn ee Somaliland: Maydh, Cirshiida, Dhexyaal, Dhidinka, Buuxaaga, Laasa Surud iyo Cilaamato. Waa deegaano ilaa hadda xukuumaddii ay doorteen xusbiga waddani aanay ka hirgelin hal mashruuc oo weyn, balse taasi beddelkeeda waxaa gaadhay tiimkani waday wacyigelinta HIV/AIDSka. Hay'ada waaweyn ayaa iska kaashaday inta badan mashaariicda noocan oo kale ah ee wacyigelinta HIV/AIDSka. Taasi waxay muujinaysaa in halkii xukuumadda ama hay'adaha dawladdu ay mashaariic waaweyn oo wax ku ool leh isla markaasina waxtar leh gobolka Sanaag uga soo qaadi lahaayeen hay'adaha caalamiga, inay taasi beddelkeeda ay ka soo qaadayaan waxaan bulshada wax sidaasi u tarayn. Arrinta hooyooyinkan sawirka idinka muuqda iyo bulshada nugul waxay maanta guranayaan midhaha xukuumaddii ay shalay doorteen. Dhinaca kale, iska daa deegaanada kale aan soo tiriyay, haddii aan Maydh iyo hooyooyinka sawirkan idinka muuqda baahiyahooda ugu waaweyn mid qura ka soo qaadano, waa waddada Tabca. halka maanta waxaa ka dhacay shil gaarigaas oo ka dhacay laaga Tabca. waa ka masaafada uu soo socday halkaas ayuu ka soo booday. Waddadani oo ah tii ku jirtay ballanqaadkii buugga xusbiga waddani oo shalay xukuumaddu intii aan la dooran ay ballanqaaday. Bulshada waxay ku haysaa dhibaato weyn. Waxa go'doon ku jira isu socodka, ganacsiga iyo nolosha bulshada, gaar ahaanna deegaanka marsada weyn ee Maydh. Waddadani waxay ku jirtay ballanqaadkii 100 cisho ee muddaxileedka xukuumadda ugu horreeya. Weli bulshada degmada Maydh waxaa soo gaaraya wacyigelino noocan ah oo uu ka mid yahay kani. Si kasta ha ahaatee, bulsho xukuumaddii ay dooratay doondoonaysa oo ay isla yihiin ayaynu warbixintani diiradda ku saaray. Waa aniga oo ah Warsame Kaafi Cabdirashiid.